الشيخ عبد الرحمن إبراهيم حسن وحرونتا علاجك الرحمة مقالة عيري قابو بريو دنبيه بكودي كدوينتا قرآن يدرت دادك قبا حنونادا تشينكا إيشا السحر كيوحي لحريرا شيخا وانو كبو قناي حرونتي سايا نوغور بحيي حنونكا وكدويي دادك يتراد دادك ودويي مدد وكسوغنا مقالة عيري قابو إساقو كارلا يا رما سنوحا ويري سحر بانو والله ناق بانو يا ضبيت شمباب سبيانا امسا الملهي هلا سحريات muddo 10 cashaan shaqada iyo wax weeyaan hawsha ka waday dad badan ay ku caafimaadeen oo Ilaahay caafimaadka siiyo Ilaahay ba caafimaadka haye ilaa imikana shaqada way socotaa inta rabadaana waxa ku rajo weynaa inay sii wadno shaqada أفر سيرة ثمانية عيال حسن صدح ثمانية أفر سيرة صدح حسن ثمانية قرآن قاسي مسلمين تا يا مسلماتك مؤمنين تا يا مؤمناتك شفاء رحمة هنون بركة يوياي ظالمين تا يا فاسقين تنا خسارة يا هلاك يوياي dadka cuntada leh sixiroolayasha jinka wax dhigo xasadka musabiyaanada dumarka carruurta galaysa waxaan soo xil saaray ilaahay dartii muslimiintu waxaan ka dalbaynaa in dhammaantood kitaabka ilaahay soo noqdaan waxaan u babacdhaynaa walaalayaal shar kasta oo la yimaadaan saaxiriinta iyo xaasidiinta iyo cid kasta oo ka xun muslimka in loo gargaaro waxaan u babacdhignaa walaalayaal dhammaan waxa la wax xaasida ee muslimka dhibaato ku ah inaanu ka hortagno inagoo kula dagaalamayna awoodda ilaahay subxaana watacaala gargaarsanayna in aanu ku akhrino aayaadka qur-aanka maxsuuska sixirkaan ku akhrino kuwa jinkaan ku akhrino kuwa ishaan ku akhrino kuwa xasadkaan ku akhrino ilaahay subxana wataala wuxuu naga tusay wax weyn dad badan oo liitay baa ilaahay subxana wataala ku caafiyey waxaan leenahay muslimiinta meelaad joogtaanba afarta daafood adduunyada soo noqda ilaahay toobadkaana isxisaabiya ma weydiisanna lacag adduunkuma xidhayno fii sabiilillah baan ku shaqaynaa kaar $10 la qaadaa kaarkaa $10 walaalyaal waa shaqaalaha iyo kirada iyo masaariifta dadka shaqaynaya saa laazima waxaan leenahay wax adduun leeda ku xidhi maayo adduunka meeshaa doontaan jooga kaalaya soo noqda qur-aanka ilaahu soo noqda ilaa 15 kun oo qof jin iyo sixir iyo il iyo xasad dadka waalwaalana maryaha daadinay marka hore bogsaday ilaa 2500 bay ku dhow yihiin dadka indhala ilaa imagu xanaynaa 3 qof ilaa inaa soo celiyey dadka maaragtay curyaaminta ee sare kacay ilaa dhowr qof baa la hayay iyagana ilaahay baa shaafiyey annaga maaha shifadu waa min allah qaar ka mid ah dadka ilaahay ku guuleeyay inay ku dawoobaan xarunta shifa al-raxma ee magaalada ceerigaabo ayaa dhankooda ka hadlay sida uu daweeyay sheekh cabdiraxmaan ibraahim xasan waxaan imi anigoo xanuunsanaya maantii dibadaan ku dhacay markii la xareeyana waa ladnaaday aad iyo aad ayaan u caafimaaday 3 cishaan ku jiray markii maantii labaad waan ku ladnaa maantii 3 cisho markaan ku jiray waan ladnaa kadib waxba iga maqayna isku manaag shifada maalin walba waan imaad magacayga waxa la dhahaa Saciid Umar Jaamac jabaan baa lagu naanaysaa anigu markaan meel shifada imi waa leeysiday 4 biloodna waa fadhiyay gurigay ka bixi jirin sixir baan lagu googooyay cadooba ay helay dabeetana maalmihii uu yimi wadaadku cidii ugu horeysay baan ahaa u soo gashaa isla maalintii baan aniga shaqadeeda waa dhamaystiray intii kana dihaan iyo dawooyin baan qaatay oo Faadimo Umar Axmed halkan waxaan joogay 10 casho aad baa loo fiican yahay markaan 4 casho ku jiray baan caafimaaday waan ka baxay maantana dad baan keenay alxamdulillah rabbil caalamiin dad 500 qof ka badan buu wadaadkaas dabiibay aad buu fiican Cabdiraxmaan Axmed